waayo alkanis form waxay sameeyaan qaybta kale ee cashirkeena haddaan u gudubno alkaniska form waxay sameeyaan homologous series taxanayaal isku boos ay sameeyaan with general formula waxayna leeyihiin qaacido ah CnH2n plus 2 qaacidadan horta waa inaad fahantaa weer halkaasoo n ay u taagan tahay the number of carbon atoms in the molecule n mar walba waxay u taagan tahay inta carbon number of carbon ee ku jirta moleculeska ku dhex jirta ay u taagan tahay alkanis marka form waxay sameeyaan homologous series taxanayaal isku boos ah maxaa loo jeedaa taxanayaal isku boos ah waan sii jilci doonaa insha Allah taxanayaal isku boos ah gadaalan ka jilci doonaa xiisooyinka qaybaha dambe cashiradeena ayaan ku jilci doonaa insha Allah ku jilci doonaa hadda ergaas laakiin noder isar waayo qaacida markan ku proof karay oo methane ethane aad ila fahanto wixii dhan aan proof karay aad ila ogaay kartaa marka insha Allah markaasaan dul istaagaa hadda example koowaad marka qaacidadan waa qaacido kale muhiim ah waxaa kale marka the number of carbon and hydrogen atom number of carbon and hydrogen atom waxaa lagu xisaabi karaa qaacidadan ah hydrogen waxay la mid tahay 2n plus 2 qaacidada muhiim waa idana 2n plus 2 waa example koowaad find so the number of hydrogen atoms of an alkane with 5 carbon atom adoo haysatid booka kaaga shaqeynaa firi given waxaan haysanaa 5 hydrogen aan weydiisama waa kan qaacidada waxaan ku apply gareynaynaa bas ah hydrogen hydrogen maxaa lagu helaa bas ah hydrogen waxaa lagu helaa 2n plus hydrogen waxaa lagu helaa saa ujeedaan 2n plus 2 waa kana saa ujeedaan firi 2n plus 2 waay haye number of carbon n oo carbon waxay la mid tahay 5 ku apply garey marka hydrogen equal waxay la mid tahay leenahay 2 number of carbon meeqa haysta n meeqa haysta 5 ku bedel bas wax adag ma ah haye plus 2 waxay noqonaysaa 2 5 ku dhuf meeqa waa 10 10 2 ku dar meeqa waa 10 iyo 2 das hadaba waxay noqonaysaa carbon maadaama uu 5 u yahay hydrogen 10 iyo 2 uu yahay waa bentane maadada la hawaay waan arki doonaa insha Allah si cadeey doonaa iyada waa qaabkaas waaye waa example kood meesha ku bixina example labaad example 2 find so hell the number of carbon atoms of an alkane soo helaan Allah waayahay maxaan haysanaa macnaha waxaan haysanaa 10 hydrogen atoms aan haysanaa 10 hydrogen atoms xogaa inay tirtiranta moodaa laakiin 10 10 hydrogen atoms ayaan haysanaa waayahay marka waxaan weydiin maanta waxaan weydiin find so number of carbon yaan haysanaa hydrogen haysanaa qaacidada bas la soo qaado given maxaan hal siiyay oo caan hal siiyay hydrogen oo ah 10 ayaan hal siiyay maxaa find so hal maxaa la dhahay carbon qaacidada hydrogen maxaa lagu helaa hydrogen waxaa lagu helaa 2n plus 2 ayaa lagu helaa waayo waxaan leenahay mar qaacidadan hydrogen inta ugu wareeji waxaan leenahay kadib 2n plus 2 equal waxay la mid tahay hydrogen ay la mid yihiin inta maxay la mid yihiin hydrogen ku bedel marka 2n plus 2 equal waxay la mid yihiin 10 ila hydrogen bedelkeed meeqay la mid tahay 10 ay la mid tahay haye equation caadi waa sida equation xisaabta looga shaqeeyo camal wax adag ma 2n plus 2 equal waxay la mid tahay waxaan leenahay marka 2n plus 2 equal waxay la mid tahay 10 soo ma dhihin marka 2n isoo qaad equal aan leenahay 10 labada marka intaan soo marna intaan soo marna after equal hadii la soo marna maxay noqonaysaa negative 2 marka 2n equal waxay la mid tahay 10 laba ka dar meeqa waay 8 waa sama 8 waa si aan u baabi horgalaan dhinac wal maxaa qaybinaa 2 dhinacan maxaa qaybinaa 2 anta meeqa la mid tahay marka 8 laba u qaybi meeqa waay 8 hadii 2 loo qaybiyo waa 4 sama number of marka maxaa waay das hadaba waxaan leenahay das hadaba carbonadu waa 4 hydrogentan waa 10 maadadan waxa loo yaqaanaa butane ayaa loo yaqaanaa waa ina qaabkaas aad u fahantaa buugan waa kaaga shaqeynaa si clear oo kaaga shaqeynaa waa ka soconaynaa waqtigaan hayo waaye qaybtaas marka waa qaabkaas methane oo leh is a primary si aasiin marka aan fiirino leeyahay si aasiin marka aan fiirino is a primary compound oo isku dhis aasi ah in natural gas waliba waa gaaska rabaaniga ah oo caadiga loo isticmaalo waliba shirkadaha maanta inta badan muqdisho ka shaqeeya waxay isticmaalaan methane gas waaye tremendous quantities waxaana ku jirto tiro aad u weyn tremendous waxa waaye waa weyn quantities tiro aad u weyn ayaa ku jirto leeyahay of
wuxuu leeyahay of natural gas taasoo ah natural gas ayaa ku jirta are iyaga consumed waa la isticmaalaa worldwide dunida oo dhan ayaa laga isticmaalaa guud ahaan because maxaa loo leeyahay methane is an efficient waa mid wax qabad fiican leh clean waxyaabo wax qabad fiican leedahay maxaa kamid ah clean waxyaabaha lagu nadiifiyaa nadaafada loo isticmaalaa waxaa kaloo isticmaalaa burning fuel shidaalka gubanaya oo loo isticmaalaa shidaal gubanayo kala meesh waa loo isticmaalaa it is iyada used sidoo kale waxaa kaloo isticmaalaa to heat in lagu kululeeyo homes guryaha cook in lagu kariyo food cunada and sidoo kale power factory shirkadaha waaweyn way isticmaalaan xoogga leh methane uu leeyahay has the following structure waxaan leedahay qaab dhismeedkan soo socda ay leedahay marka qaabkaas ay noqon karaan walaalayaal markaan si dhow u fiirino intaas waxaan ugu bixinaa marka guud ahaan waxaan ugu bixinaa qaybtan oo ah cinwaanka alkane-ka ahaa oo ahaa nooga bilaaban 1.3 alkanes maxaa raada marka guud ahaan ustaad waxay ka kooban yihiin 10 waxyaabood ay ka kooban yihiin 10 kan waa ina barataa page kan ku taala 10 kaas waa ina barataa fiiri waa meth eth prop bute benta hexa hepta octa nona deca 10 kaas horta baro 10 kaas hadaad barato 10 kalan kugu dara hadii ilaahay ma soo qoraya oo kadibna insha Allah halkan aad ku fahmi doontaa marka meth waxay u taagan tahay number 1 eth waxay u taagan tahay number 2 prop waxay u taagan tahay number 3 bute waxay u taagan tahay number 4 benta waxay u taagan tahay number 5 hexa waxay u taagan tahay number 6 hepta waxay u taagan tahay number 7 octa waxay u taagan tahay number 8 non waxay u taagan tahay number 9 deec waxay u taagan tahay 10 haddaadan 10 kan baranin ma baran doonto chemistry class-ka macnaha saasay ka dhigan tahay 10 kan inaad barata ayaa very important ah marka 10 kan aad barataa wax badan ka saacideysaa waay marka fiir waxyar haddaan soo qaadano walaalayaal waxyar haddaan soo qaadano si dhow markaan fiirino meth maxaa waa number koowaad waa meth waa number 1 ayaa loo jeedaa ain aa lagu daray ain maxay u taagan tahay alkane ay u taagan tahay dhammaantooda ain ku dar alkane maxaa waay waa single bound alkane waa single bound qaabkaas fiiri mid walba inaad saas fahantaa alkane waa single bound waa meth waa 1 ah ain waa alkane waxay u taagan tahay single bound dhammaan markaan fiirin qaabkaas waa marka dhammaantood marka fiiri methane marka maxay yeelataa qaab dhismeed ah CH4 say ku imaato waa su'aal muhiim ah waxay ku imaatay CH4 qaacidadii alkane oo aan soo qaadan bilow boog CnH2n + 2 qaacidadaas ku apply gareynay dhammaan wax dhan ku soo baxayaan C number of carbon keed meeqa qaadana maanta meth maxay u taagan tahay number 1 u qaad 1 inta maxaan leenahay 1 aan leenahay 1 kama la muujiyo laakiin ma la muujiyo ka soc maadaama aan la muujin 1 H soo qaad H 2 lagu dhufto 1 + 2 soo qaada C marka waxaa leenahay 2 hal ku dhufo waa 2 2 ku dar waa 4 saasay ku soo baxday ethane oo kale aan fiirina eth maxay u taagan tahay eth waxay u taagan tahay number 2 ay u taagan tahay ane ku dar waa alkane waa hay number of carbon maxaan qaadanaya 2 waan qaadanaya qaacidada alkane maxay ahayd CnH2n + 2 soo qaad marka C2 hay 2 lagu dhuftay 2 ila number of carbon waxaan ku bedeshay inta waxaan ku bedeshay maanta 2 aan ku bedeshay ila sababta number of carbon 2 qaatay waayo ila socota sama 2 lagu dhuftay + 2 aan leenahay hay inta meeqa soo bixis marka 2 hay inta 2 ku dhuf 4 2 ku dar 6 aka intaas kadib hadii aan ka socdo dhammaan marka saas ugu proof karay dhammaan propane waxay leedahay 3 carbon iyo 8 hydrogen butane waxay leedahay 4 carbon iyo 10 hydrogen bentane waxay leedahay 5 carbon iyo 12 hydrogen hexane waxay leedahay 6 carbon iyo 14 hydrogen waxaan dhan hadda aan inta ku qoray caday qaacidadan ku caday adaa laga rabaa in waqtigan duubahoya muuqaalku waqtigiisu iska yar yahay inta kale ku proof karay insha Allah waa fahmi doontaa hal mar waxaan rabaa inaan dul istaago wax yar hal daqiiqo ah homologous series waxaa loo jeedaa taxaniyaal isku boos ah homologous maxaa waay waa waxyaabo isku boos ah macnaha maxaa loo jeedaa all alkanes oo dhan waxay isku jiraan CH2 qadar ah CH2 isku jiraan all alkanes oo dhan waxay isku jiraan qadar CH2 hay aan soo qaadan marka fiiri methane maxaa waa CH4 ethane maxaa waa ishak C2H6 hay propane maxaa waa C3H8 soma saddexdan tusaale hadaan soo qaad methane marka waa kana fiiri methane inaan ga baxo
iyo ethane labadan laba shay oo isku xigta waa laba maado isku xigta maadadan tan ah iyo tan waxay isku jiraan qadar CH2 ah maxaa cadeynaya soo qaad methane qudheeda CH4 waxaa ku dartaa CH2 ku dar maxaa soo baxay carbon carbon ku dar laba carbon afar laba ku dar 6 soo baxda ma yaha haytan kale ku cadeey propane ma qaafiri ethane soo qaada ethane iyo propane inta isku jiraan ayaa waxa ah CH2 hay soo qaadatana maxay noqonaysaa marka CH2 ku dar waxay noqonaysaa tan propane ma qaaheed C3H8 sama inta soo bixis insha Allah C3H8 saas loo jeedaa marka inaad fahantay aan jeclahay dhammaan marka saas loo jeedaa marka la haayo qadar CH2 ay isku jiraan marka la waxa homologous series taxano isku boos ah marka dhamaantood waxay isku jiraan taxano isku boos ah oo CH2 ay isku jiraan dhamaantooda halkaas ayaan geynaynaa insha Allah waa mahadsantihiin qaybtan waxaan dul istaagno waxay tahay qayb muhiim ah oo basic chemistry ah aad u mahadsantihiin